wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo saxaafadda kula hadlayay xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay safar shaqo oo kaga yimid dalka Mareykanka. Wasiir Bayle waxa uu sheegay in rajo weyn ay ka leeyihiin in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay, isagoona sheegay in qorshahaasi meel fiican uu marayo. waxaan ka soo hadalay markaa waxaan noo qabsoomay sanadka yaan ka soo hadalay tallaabooyin baan qaadaynaa wadaan soconaayo wadada halkaan marayna maanta ayaan ka soo hadalay dad fara badan oo way ka hadleen cid alla cidii Soomaaliya danaysa oo adduunyada inteeda badan ah gaar ahaan wadanada Europeanska iyo America iyo Canada iyo garanaysa wadanada Carabta iyo hay'adaha ay leeyihiin lacagaha ku shaqale ayaa meesha isugu yimi 13 ilaa 18 waxaan anagu xil weyn iska saaray inaan cid walba gooni ula kulano Americaanka la kulano Europeanska wadan la kulano ayaga oo wadanaana la kulano iyagoo hay'adaha aan la kulano ayaan quwada saaray waan la kulanay simple waxaan uga waramaynaa wixii la nooga baahnaa kaasuha halkaas aan soo gaarsiinay wixii la nooga baahnaa kaasuha ayada waxay warqadii qoran tahay la soo wada ogyahay ayaa haddana wax walba reportkiisa aan haynayo waxaan leenahay wax wala loo nooga baahnaaba halkaasaan marayna waxa taana wixii taa markaa waxa weey inaan waxaan ka baryaynaa noo hadashaan oo marka la isku yimaado shirka weyn oo 19 dhacay inaan noo hadashaan oo haddaad qanacsan tihiin oo ku qanacsan tihiin waxaan qabanay caawimo siisaan in deynta la naga cafiyaan rabna. waxaa jira qorshe Soomaaliya loogu daabacayo lacago sida uu sheegay wasiirka, isagoona sheegay in mar dhow Soomaaliya dib loogu daabaci doono lacago. si lacagtaadii loo soo daabaco waxaad u baahantahay 40 milyan 40 milyan inagu ma haynaa halkii laga keeni lahaa ayaa dadaalkeeda lagu jiraa ugu jiraan qolooyinka doonaya in lacag sameeysan taasina iyadana waa la isla gartay waxaan filaynaa marka dhawaan lacagteena inay soo noqoto ayaan filaynaa waxaan noqonaysaa wax weyn tallaabooyinka waaweyn aan qaadanay ka mid tahay in lacagteena soo noqoto waa shilin Soomaali wax ku iibsato. mideynta canshuuraha dalka ayuu sheegay inay meel fiican marayso, isagoona sheegay in dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ay ka wada hadleen sidii loo mideyn lahaa canshuuraha dalka. laakiin inta israacsan ee Puntland xagga ugu xigto wada hadallada socda waxaan filayaa in meel la isla soo gaari oo taanagu wasiiradayadu waan shirnaa ilaa 4 jeer baan shiraan malanayaa sanadkiina dhaafay imikana way noo qoondaysan tahay way noo qorshaysan tahay waxyaalaan ka wada hadlaynana inaan cashuuraheena midayno wax dhibaato meesha ku jira ma jiri karo haday bila qumayn. ugu dambeyntii wasiirka ayaa ka hadlay fatahaadda webiga Shabeelle oo ka sameeyay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. waxaa loo baahan yahay inaan nagu wax ka qabano aad baan uga xumahay fatahaadaha dad fara badan ayaa ku dadiya adduunyada beelayba ayaa saakreeyo ka maqlay waanu tacsiideynaya insha Allah taala deymaha iyo dhibaatada marka ka baxno webiga iyo biyihiisa waan iska habayn doonaa wax khayraad weeyaan dhibaatadii khayraadka ka timid weeye khayraadku maamul bay u baahan yihiin iyo magaranaysa iyo habayn iyo maareyn bay u baahan yihiin insha Allah taala waxban ka qaban doonaa abaarahan soo noqnoqdayna waxa weeyaan maanta webiga biyihiisa hadii la habeeyo abaar waxba ka qaadimayso. Axmed Suleymaan, Honkebel TV, magaalada Muqdisho.